waxaan rabaa in aan dadka Soomaaliyeed u caddeeyo in dawladda Imaaraadka Carabta aan la lahayn xiriir wanaagsan oo dhankeena aan u galnay si niyad samaan ah oo qalbi furnaan ah. nasiib darro dawladda isu tagga Imaaraadka noolama dhaqmin sidii dawlad mid ah oo madax bannaan. intaas kadib weli maynaan degdegin ee marar badan ayaan ka dalbannay dawladda Imaaraadka inay noola macaamilaan in aan nahay hal dal oo madax bannaan mas'uul ah ayna joojiyaan habka docfaruurka ah ee ay albaabada kala duwan uga soo galayeen dalkeena ayagoo ku kacaya arrimo aanay mararka qaarkood ka warhayn dawladda federaalka ee Soomaaliya kana dhex fulaya Soomaaliya gudaheeda, kuwaas oo xadgudubna ku ah haybadda iyo qarannimada dalkeena. ka baaraan degid dheer iyo qiimeyn badan kadib waxaa qasab noqotay in aan qaadanno go'aanadii shalay soo baxay ee lagu baabi'iyey heshiisyadii nagala dhexeeyey dawladda Imaaraadka Carabta. go'aanadani waa kuwo ku salaysan difaaca danaha qaranka, madax bannaanida dalkeena iyo dhowrista midnimadeena dhuleed, kadib markii ay noo caddaatay in sii socoshada heshiisyadaas iyo iskaashiyada nagala dhexeeyey dawladda Imaaraadka Carabta ay khatar ku yihiin qarannimadeena iyo qaranka Soomaaliyeed.